mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer oo qaybo kamid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa baaq u diray bulshada ku dhaqan gobolkani Togdheer ee uu ka lumay kaarka codbixiyuhu. Mas-uuliyiintan ayaa sidoo kale waxay fariin u direen murashaxiinta u tartamaysa doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolada bariga Soomaaliland, iyagoona sheegay waqtiga ugu dambeeya ee la qabanayo codsiga murashaxnimo inuu yahay 22 bishan aynu ku jirno. dadweynaha waxaan ku booreenaa cidii uu ka lumay kaarku inay goobta ugu dhow ee sanduuq la dhigay tagaan oo ay mar labaad ka diiwaan geliyaan oo sheegaan inuu kaarkoodii ka lumay si kaar bedel loogu sameeyo. dadka labaad ee iyagana fursadan u furantay waxa weeyaan dadka degmada doorasho iyagoo jooga degmo kale raba inay hadhow ka codayaan, sida iyagoo degmada Burco jooga, degmada Berbera doonaya inay u bedeshaan, ama degmada Berbera dadka jooga, ama degmada Maroodijeex Hargeysa inay Burcaynta yimaadaan soo bedeshaan oo soo bedeshaan goobta murashaxa ay doonayaan inay codeeyaan iyo degmada ay ka soo jeedaan murashaxiintoodu inay soo bedeshaan ka gudoomiye xisbi ahaan ka gobol ahaan. waxaan kaloo kamid ahay gudida soo xulista murashaxiinta ee xisbiga kulmiye gobolada bari. runtii waqti yar baa hadhay waqtigii xisbiyada u qabteen muddada 22 bisha ugu dambeyn in xarunta xisbiga ku soo xareeyaan gobolka Togdheer murashaxiintu siifiyadooda iyo codsiyadooda inay iyaguna ku soo xareeyaan. fariintaana waan uga faa'iideysanayaa dhammaan gobolada Soomaaliland oo dhan ay ka bilaabmatay kaar bedelashadii iyo dadkii kaarku ka lumay oo iyagana la diiwaan gelinayo. marka waxaanu leenahay bulshada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer inay jaaniska ay ka faa'iideystaan oo aanay intay had iyo jeeraale waxa dhacda qofku sidoo dub isu soo dhigayo isleeyahay ama bari ama saa dambe inay ka xiranto. jaanis waxaad haysataa aad iyo aad u wanaagsan. jaaniskaas waa jaanis intuu ka lumay mar hore maanta dib lagu soo celiyay, waayo waa jaaniskii aad wax ku dooranaysay waxna aad ku diidaysay weeyaan. marka waxaan aad iyo aad ugu boorinayaa inay ka qayb qaataan gobolka Togdheer siiba maxay heetay xusbiga taageerayaasha xusbiga kulmiye. waxaan halkan u joognaa inaanu wacyigelin ku saabsan fursadan komishanka doorashooyinka qaranku ay mar labaad siiyeen muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan 6 gobolba inaanu ku baraarujino kuna wacyigelino inay fursadda dahabiga ka faa'iideystaan. sida komishanka doorashooyinka qaranku inoo sheegeen, fursadani waxay ay daaran tahay laba qaybood oo kala ah cidii doonaysa meeshii ay hore kaarkeedu ugu qornayd ee aan ka codayn karaynin mustaqbalka dhow inay bedelato oo goobta ay filayso inay ka codayn karto ay u bedelato, iyo qofkii kaarkiisii hore ka lumay in uu chance u heli karo in dib uu qaato. marka dhammaan bulshadeynta jamhuuriyadda Soomaaliland bulshada gobolka Togdheer gaar ahaan taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaan ugu baaqaynaa inay is abaabulaan inay ka faa'iideystaan fursadda dahabiga ah. waxaa guud ahaan qaranka Soomaaliland ka bilaabmay kaar bedelashadii iyo qofkii uu kaarku ka lumay in kaarkii uu qaato. runtii baaqaan u dirnaa bulshada u dirnaa wixii guud ahaan Soomaaliland in waqtiga laga faa'iideysto. runtii waa waqtigii shacabku ay fartooda ku dooran lahaayeen qofka ay doonayaan ay ugu heli lahayn. waa waqtigii qaranka loo xuli lahaa qofkii ku munaasibka ahaa, haddii tahay golaha sharci dejinta iyo haddii tahay golaha deegaanka. taageerayaasha xisbiga kulmiye waxaan leenahay waa inay is abaabushaan, waa inay kaarkii qaadataan, kii uu ka lumay waa inuu soo doontaayo waraaqihii uu soo doontaayo oo uu qaataa wixii loogu talagalay komishanka ugu talagalay. ayaan la Cabdullaahi Jaamac, warbaahinta SBC magaalada Burco.